asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa walaalkiin qays walaalayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago qiso aad iyo aad u xanuun badan dhacdo aad iyo aad u xanuun badan ninkaagu kuma soo waco ninkaygu isoo wacaa laakiin waan xaliyaa waxaan u xisaabsanay inaan haddaan ugu dambeeyo aan 8 seexdo haddaan ugu dambeeyo inaan 8 seexdo ayaan kalendarkiisa ugu jirtaa daasna 8 wixii ka dambeeyay ma hurdu haystaaba inaan hurdu haystaa ilaahay baan ku dhaaray mana khiyaamahayn ninkaagu uu haystana hurdu aad arooska jaasis ninkinays ruuxays samay balizar mudan zugay balizar xaajigeygana waan u danaynayaa maadaama uu shaqaynayo subaxa salaada kala hayo waxaan ku dhahaa iska seexa baby 8 aniguna sidoo kale waan seexanayaa marka laakiin shaqada joogto dhagtaada earphone-kaaga ayaan kugu jiraya maalin oo dhan baa u sheekeeya ninkayga sidii waxay ahaatay habeenkiina hurdu ku haystaa habeenkiina waan u hurdaa balaa soo socda hooyadii ayaa arrintii kolba warkii baa duulduul ku gaadha dhagax meel dhow ku dhacaa la dhawaaqna meel dheere hadalkii baa islaantii gaadhay islaantii baa waxay ku tiri hooyadii ayaa horta may habeen 9 bay ii timid gurigii way garaacday waa laga furi waayey ileen maba joogabe isagii baa soo garaacay waan arkay koolkiisa kama qabanin subaxii baan ku celiyey islaantii waa iska tagtay islaantii markaa way la hadasho waxay ku tiri bal gabadhaadii albaabkii ka fura la hadal hooyo bisinkaa xilligan maxaa ku wada hooy 8 seexataa hooyo heblaayo fiid bay baratay inay gamaado anaaba caawa daahay 8 hooyo seexataa hooyo ka daa albaabka gowgowdiisa hooyo ka daa albaabka gowgowdiisa yaanay ku nixin yaanay salalin hooyo ka daa wuu ku yidhi odaygaagii waa ninkaygiiyo wuxuu ku sameeyey deetana waaniga deetana qaadayoo odaygii saasuu ila soo hadlay kama qabanin telefoonkii subaxii ayaan ku celiyey bibi haddaan soo toosay maxaa kugu dhacay xalay toon waa naxa waxaan sidhi maxaa ku dhacay siguuri hooyaa kuu timid xalay saqdi dhexo oo anna waxaan sidhi wata albaabka furi weydee malaha maxbaa ku dhacay waan kuu werwere xalay ma seexanin markaasaan ku waxaa waan seexday dhar baan maydhayey dhar baan kaawadaynayey saas darteed waan daalay maxaan lahdayey deetana waan gadaati dhacayoo waan seexday waad kala dhacday waa ka ku aaminay laba ninkaagii waa ninkaygii wuxuu yiri waaya xabiibi waan ka xumahay ma naxday ma selashay aanu hooyo waxaan ku dhibaa keligeed bay guri joogtaa yaanay cabsanin garaacitaanka badan ka daa marka ma ka sheekaysataan maalmaha wada joogteen waxaad qaban jirteen ma xasuusama gashaan mase xasuusisaan wixii ma idiin sawirayeen maxaa ku tiri marka maxaa xasuusisay maalinta waxbaad rabtaa inaa ilowsiisid moogtaa waxa xasuusi bibi anigu waxaan ku farxaa markaad adiga saa albaabka aad u soo gasho waxaan aqaanaa timekaad soo gasho markaa sidaa albaabka intaanad gacantaada ku dhufanin anigu inaan kaa furo waad og tahay waayo adiga qof adiga uun kaa dhul sugaya oo ku sugaya ayaan ahay oo adiga uun kuu taagan sawirkaagan ku seexdaa ku soo toosaa labadaa cisho waxay igala qaalisan yihiin adduunka waxa yaallo oo dhan oo labada cisheedii la joogtidee inta kalena baholyow iyo sawirkaagoon laabta ku haysto ayaan habeen walba ku seexdaa sheekadiiba wuu ka baxay nin xaajigiinbi sheekadiiba markuu ka baxay waxaan lama dhowran kare wixii singalow kacay waa ka deetana way xabiibi igu yidhi wana ku dhahaye telefoonkii baan dhigay islaantii baan qaraacay hooyo xalay toole shalay dheer baan maydhayey taasaa igu dhacday maxaa hooyo kugu dhacay hooyo xaafad jaarkiina baan joogay waxaan sidhi sii salaan marka haddaad hurdo waa caadi hayaweegan kooda
iska dhigay telefoonkii haya maalintii dambe haddana sideedii u soo garaacday oo soo yaro horeysay 8dii anoo baxay kow islaantu waa balaayay waa islaanta CID guriga soo la garaacaysa ma khaldanta ma soo saxsanta islaantu maxaa guriga keena islaantu guriga keena dumisay rabtaa haya waaniga deetana ku uri mas islaantii baa soo qaraacday anoo baxay haya dhama shaydaan baa ka furay oo isna way soo qaraacay markaan ka qaban waayay wuxuu ku uri hooyo gabadhani way hurudaa 8day seexataa maxaa gabadhayda guriga keligeed bay ku tahay maxaa la inay sastaan ka baqanayaan inay cidlootaan ka baqanayaan inay hadhow toole qof yacni xataa guriga keligeed joogi kari weyda ay noqon weydo ayaan ka baqanayaa marka wayna ku qasbantay inay keligeed joogto because anu inta kale waan shaqeeyaa 5 cisho dhammaan shaqeeyaa oon ku baryaa hooyo xaaskayga wax dhibaato ha u geysanin ha u tagin buu dhahay garaaca ka daa hooyo bilis habeenkii garaaca ka daa haddaa u tegaysid maalin oo dhan u tag maalin oo dhan bay soo jeedaayo kow ninkaas ma saxsanaa mise u khaldanaa islaantu u khaldanaa baa dhacday ninka yidhi gabadheeda habeen hooyo uma tegi kartidba do not look my wife tonight habeennimo ha tegin englishka do not look my wife waa ka deetana waa ka ku tiri hooyo haddaad adigu saa ku qanacsan tahay gabadhan waxaa laga sheegay inay meeraysato inay gabadhani gabadh 8 seexatay inta 8 seexday ilama eeka ma fahantay gabadhani way meeraysataa maxaan dhahdayay labada habeenan albaab guriga u tumayna filim baan ka lahaa waxaanan ogahay inaanay joogin hooyo istaji ma heblaayo mayna calaamo kale la helayaa hooyo iyadoo kale lama helayo hooyo ilkaha saroon baa xaaraantimee gabadhayda hooyo ha ku qaldamin dadkan waa dadkii ilaahay dadka ku cadaabayay waxbaba ma maxaa la dhahdaa xumayso gabadhaydu hooyo markaa bal hooyo aduu lafahaaga iyo aakhiradaada u tiro gabadhayda hooyo iska daawo kuuri haya shaashada ilowday hal mar 200 gaarsiiya haysto dhaqaaqday ku soco waayahay buu yidhi ma saas ahaa hooyo gabadhaada ilka saraa xaaraantinimee haa waayahay adaa dambarsan doona ayay ku tiri waay deetana dhowrkii habeen way daysay ma soo baalaysto markaan sii seexanaya waan sheegaa baby saritaan saaranay video call baan kula hadlayaa waan seexanayaa waqtiga waa ku wacnaado adna ma seexanaysaa haa haye waa soo seexiyaa annaa waan seexday baan ka dhigaa waad baxdaa markaa deetana waan labistaa markaasaan baxaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun aniga iyadoo sanad cusub tahay oo maxaa la dhahdaa xaflad weyn la qabanayo showga oon sidee giddiga maalintii intaan radsanaa aan waxaan kun inta shaawarka soo galay soo maydhon dharkii ugu dambeeyey soo xidhay oon bidixda saa uga tallaabsanayo oo bulkaatigayga shanqadhiisa uu saa u shanqalaya jamamacda u hayo uman albaabka furi jira oo bulkaatigaygaan xidhanahay oo sidaa jamamacda u hayo bulkaatigu dahab miyaa ma yacni silsilad iyo dhego iyo wax saasa ayaan xidhanay iyo suuliyaal shanqadhooda halkee laga soo maqlayo cadarkayga aanad qiyaasiba karin ayaan albaabkii furay albaabkiidaan furay waxaan arkay islaantiioo sida qoriga saa ii hortaagan qaaq dibdib baan u soo dhacay ilayn ma filanaynin oo isagu hooyadii qaaq markaan idhi dibdib u soo dhacay ayaan fadhigii dib ugu noqday waan fadhiistay islaantii baa soo gashay naalkeed ku socotay biyaygan baan ku uri wadnahaygi sarartayda hoostiisa ka hoos boodboodayaaye adkaatay wallaahi sodohdii baa ku qabatay iyadoo isruxaysa oo rabta inay baadhi tagto anoo isruxay haye shaashadana ha ilaabin haddii 10 daqiiqa kuna saacibiya haye shaartana kulmay gaadhin isxilqaama hal mar kun gaadhsiiya haye waaniga deetana islaantii ku uri ma sidaasaa ood may islaantii ku tiri hooye halkee tegaysa bay ku tiri markaasaan ku uri wadnahaygii sarirtii hoos boodboodayaaye biyo ii soo qabaayaan wadnaha isku dejiyo
haya biyihii bay ii dhibto ha cabbay igu tiri aan cabbay hee halkeed u socotaa wadi arkaysa inaad socdo umaan ku uri may arkaysid may wade waan ku arkaya hooyo inaad socotay xaggeed u socotaa xaflad baan tegayaa markuu ninkaagii hooyo maku ogaya inaad xaflad tegaysa unbay igu tiri haya aniga hooyo odaygayga naga dhex bax biliis ani hooyadayoo kalaa tahay waan ku ixtiraamayaa aniga ninkayga biliis hooyo naga dhex bax haya oo ma oga miyaa maxaa ku tuna hadalkaaga waxaan ka fasilan inaanu odaygaaga ogeyn tegitaankaaga hadda waan baxayaa inamari maan ku dhahay sii raacne gurigan aan fushi haya acuudu billaahi min ashaytaan rajiim haya islaantii way yaabtay way hadli kari weyday waxay u tiri fallaadhi gilgilisho kaagama baadee wax kastoo la sheegabaa waxbaa ka jiray inaad meeraysato waa la sheegay meeraysata muslim fajacay maxaa igu caaye hooyoy maxaad igu caaye inamari horta bal iminka waan sii baxay ahay subaxa ii kaalay subaxaynu doodaynaaye baan ku uri aduu islaantii sidoo ku kala tagteen islaantii waan soo saaray waan soo baxnay xafladaydii baan iska aaday hooyadii baa qaraacday wax ku tiri naag kuu seexataa ma jirto naag maxaa la guri fadhidaa ma jirto waa meeraysatada adduunka meel kasta 4 marhabadood bay kasoo jawaabtay haddaad ku haysan si haddaad kalaba aday ku jirtaa unbay ku tiri islaantii ninkaygiiyo maqiiqan baa subaxii soo qaraacay hooyo saasay igu tiri xalay meel baa tegtay meel ma tegin hooyadaa waa igu riyootay waan ku uri hooyadii baad leedahay igu riyootay baabkii baan ka saaro lixan kalaan u geliyey xabiibi adu goormadii imanaysaa waan kuu xiisay ma jecli inagoo kala maqan ina istagaalno waxaanad waxba ka ogeyn ama waxaanad yani aani waxba ka jirin inaan maanta dhan isku haysaysana ma jeclin adi waan dejiye xaajigaygu haye buu igu uri telefoonkii buu dhigay hooyadii wuxuu isidhi markaa watii soo dahdaya inanta la iskaga dhawaba qaadi jiray malaha hooyadaa inantan iyada meel kale ka aragsan hooyo iska daa ama meeshii doontaa kasoo jawaabto ama meeraysata ha ahaato hooyo inankaagii baa jecel hooyo gabadha afaaraheeda ka baxo iska daa inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay baan ku dhaaray ninkaas miyaanu nacasayn hooyadii kule gabadheeda afaaraheeda ka baxa yaa hadhowna adigu hadhowna kugu soo jeesana haya acuud fariid ah dumarku waa fariid ba leey noo dumarku shagoo cadaabba ninkaas ma fariid ba yaa manaka hooyadiisaa u galay fariida ku soco waa fariid ninkaygu yahay halkiiba hooyadii wadda cadigaga marsiiyey waxay ii soo diray nin acuudu billaahi min ashari hablo waa waalayn waa fariid waa qosalka waa nacas waa ooyinta ninka hooyadiisaa u galay muxuu kuu soo diray nin buu ii soo diray wuxuu ku yiri gabadhaydaas bal halkay marto jad waxay igu leedahay waxba ma qabto maxaa la dhahdaa hooyadiina waxay igu leedahay maalin kasta way baxdaay bal halkay marta gabadhaydaas ii soo ogow waxa ma ogiya nin baa lay daba dhigay suuraafta adigoo ah anoo suuraafo xaflad ka heesaya waad heestaaba markaa waan heesaaba heestibaad qaadaysay shimbiryo maduusha madabay la raacdaa dadka ma u adeegtaa oo ma u dadaasha heestaasaan qaaday acuudu billaah waa ehlujana dadka codkaa dhegeysanaya ee ku jaasanaya ehlujanay noqonayaan dulqaadkoodaa badan maasha allah tabaaraka allah kadibna balbalaarka laba walaalaana kala dhalay kadibna waa kanagu uri waaya ninkii baa lay daba dhigay annagoo meel caweysa fadhina oo arooskii xafladii kasoo dareernay oo meel caweysa la fadhiyo oo heesaa la iska qaadqaadayo oonay dadka ka qasnayn ayuu ninku meel halkaasoo kale abuu fadhiya ninkan anuu dadka kama dhex garanayo
ninkii siduu ii ilaalinayay gurigaygii baan imid maxaa la dhahdaa waan iska seexday subaxii ayaa warkiiga tafafiran ninkaygii la siiyey Hey. ninkaygiiba wuxuu igu sawir baa xataa layga qaadoo loo diray Hey, adoo iskala haya. anaa iskala hayo waxaan ku uri saan labisanay shimbirta dusheeda taallaa ay xadhig tahay taabatahay xadhig tahay wuu arkay uu soo qaraacay wuxuu igu yidhi xageed xalay tagtay jawiga salaantii muxibadii wixii baa yara kala go'ay waxaan sidhi waxbaa qaldan waxbaa qaldan shakiba markiiba dareen baan qaatay waxbaa qaldan markaan isidhi wuxuu igu yidhi xageed xalay tagtay meella iigu soo celiyey xageed xalay tagtay meella iigu soo celiyey xageed xalay tagtay xaflad baan ku yidhi Hey. waxaad ka doontay xafladda asxaabtaydaa lahayd waan tegey sikadiisa bay ahayd aniguna waxaan isidhi maadaama yani xilligaad seexanaysay ay noqotay iska daa yani maalinnimadkii waan ilaaway inaan kuu sheego markii dambena waxaan isidhi subaxaba waad u sheegi doontaa oo sawiradaad u diri doontaa xaajigeedii deetana sawir buu iisoo diray qofkaasi ma adigaaba yigoon markaasaan ku idhi haa markaasuu igu yidhi waxaan islahaa hadday been kuu sheegto caawa 3 shahaado ayaan kugu qabanayay oon ku weydiiyey 3 jeer waxaan islahaa hadday gabadhaadu been kuu sheegto markasta saasay been kuuga sheegi jirtay laakiin runtaadii sheegtay runtuna waa waxaan adiga kugu bartay baby aad baad u qurux badan tahay markaad labisato Yeah. aad baad u qurux badan tahay markaad labisato Waa cool. markaasaan ku idhi haa Hey. markaasuu yidhi okay sidaasoo dhan ha u labisanin ilaa waan kaa hinaasayaa Saan ku dhawaado. Waa markaa sanbicii ku qabay. waa xaajigaygii Ilaahay baan ku dhaaray kaas ma fariid baa ninkaas kale ma guursan leeyahay. Waaba sanbicaan waxba kala ogeyn biyo hoos marayaane. Ninkaas ma fariid am soo nacas. Waaw way soo wada qorayaan. Show waxay iska rabaan in xafladaha tagaan. Hey. waa fariid ninkaygiya Hey. laakiin baby hal mid baan ku leeyahay sidaasoo dhan haddaad u labisato waan kaa hinaasayaa baby sidaasoo dhan baad u qurux badan tahay marka dharka aad xidhan tahayna waad ka sii qurux badan tahay marka baby waan ku baryaa saasoo dhan ha u labisanin waanan ku jeclay nolol shaqadaan sii gelayahay wadnihii baa igu soo noqday in xaaladdu ii saxsantay waan arkay waan soo baxay shaqadeedii baan iska watay maalinnimadii waan iska seexday habeenkii xilligii markay gaadhay baan doomcay inaan baxo waan baxaa waan soo noqdaa system bay ii noqotay habeenada ka mid ah show 8 markaan sida u baxay ayuu u yimid nin markaa alaab keenaya guriga nin baa guriga soo qiraacay alaab keenaya oo uga soo dhiibay magaaladiisii markaasaa deetana ula hadli wuxuu kuri gurigaaga laygama furay wuxuu kuri xaaskaygu 8 seexataa xilligana dee inaad u tagtaba maaha subaxa u gee xaadha xataa dhaweeye ugu dhiib ninkii iska laabtay uu yimid subaxii baa lay keenay alaabtii ninkaygii waxay noqotay maalintuu imanahay sidii baa raalliyo u ahay sidii baanay waxba iskaga kay bedelin waxa dhacday maalin anoo labisanaya oo sidii oo kale saa isku kala jaray ayaa albaabka furis tidhi waxaan arkay ninkaygii oo albaabka taagan ada xaflad u socda ninkaygii oo albaabka taagan acuudu waa bilaahi xilligaan bixi jiray adkaatay talo nacasku naf maskelin doonaa markan qofku markuu naxo waxbay kaga dhigtaa qosil gariir bay igaga dhigtay way igaga dhigtay qosil gariir
haya waaniga deetana habbaan siiyey xageed bibi u socotaa biigu uri markaas waxaan ku uri waxaan dareensanaa oon dareemay inaad soo socoto marka waxaan siri maadaamu maalintii dhaweyto la sawir kugu arkay adoo labisan maanta life ha ku arka ninkaagu caawa life